halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxa qayb ka ah jabhadda xoreynta gobolada Soomaali galbeed ee ONLF oo ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah dawladda Itoobiya garab istaagna u muujisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mucaaradka Somaliland oo qabiiladooda ugu yeeray inay hubka qaataan si ay ula dagaalamaan Muuse Biixi Cabdi iyo dad lagu dilay guraha magaalada Hargeysa madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni oo amar degdeg ah ku soo rogay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada khilaafa ka taagan gargaar dawladda Imaaraadka Carabta ay ka soo dejisay magaalada Muqdisho iyo ra'iisul wasaare Xamse oo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ugu dhaartay inuu xilka ka ceyri doono qodobadaas iyo qodobo kale oo daasanaya ku daawan doontaan warka dunida TV oo diyaar garooba haddii ay tahay markii kugu horeysay soo booqato ama ogaana subscribe saarto YouTube-kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid afayeenka kooxda jabhadda xoreynta Soomaali galbeed ee loo yaqaan ONLF ayaa ku dhawaaqay in ay mar kale dib u abaabuli doonaan jabhaddii hubaysneed si ay uga hortagaan waxa ugu yeeray duulaanka lagu soo qaaday dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Itoobiya ay gumaysato afayeen u hadlay ONLF ayaa sheegay in dawladda Itoobiya oo gadaal ka riixaysa qabiilada canfarta ay ku soo duuleen dhulka Soomaali galbeed ayagoo doonaya inay si rasmi ah ula wareegaan deegaano badan oo ka tirsan dalka Itoobiya afayeenka ONLF mudane Cadaane Hirmooge ayaa sheegay in dawladda Itoobiya oo taageeraysa qoomiyadda canfartu ay la wareegeen qaybo badan oo ka tirsan gobolada dawlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya sida gobolka City ayagoo ku soo wajahan deegaano hor leh oo ka tirsan gudaha dalka dawlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya afayeenku waxa uu sheegay in ay doonayso in qoomiyadda Soomaaliyeed laga tirtiro dhulka ay ka degan tahay dalka Itoobiya isla markaasna la qabsado deegaano badan kadibna lagu beero qoomiyadda canfarta sidoo hadalka u dhigay afayeenku waxa uu sheegay maamulka dawlad-deegaanka Soomaalida inay ku fashilmeen shaqadii looga baahnaa inay qabtaan asagoo sheegay in mar kale ONLF ay iskugu imaan doonto shir degdeg ah ayna dib u aasaasi doonto garabkeedii military oo markii hore ay ka tanaasushay afayeenku waxa uu sheegay in dawladnimada iyo dadkooda aysan gorgortan ka galeen asagoo sheegay in la duleystay dadkii Soomaali galbeed oo ay Itoobiya ku soo duushay tani waxay ka dhigan tahay fariin mar kale dib loogu abaabulayo kooxda ONLF ee muddada badan u taagneed dib u xoreynta Soomaali galbeed waxaana sheegay afayeenku inay ka tashan doonaan waxa ugu yeeray duulaanka qaawan ee ka imaanaya dawladda Itoobiya oo doonaysa in dhulka Soomaali galbeed ay ka dhigto meel ay ka taliyaan qoomiyada kale waxa uu sheegay in dadkii reer miyiga ah iyo dadkii tuulooyinka la barakiciyay la baabiyay hantidoodina la dhacay isagoo wacad ku maray in jabhaddu mar kale ay hubkooda qaadan doonto tani waa fariin kale oo laga soo diray gudaha Itoobiya iyadoo madaxweynaha dawlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha wadankaasi Abiy Ahmed labaduba ay sheegeen dhawaan in ay duulaan ku tahay dawladda Soomaaliya Itoobiya sida hadalka u dhigeen tilaabadan waxay muujinaysaa hilacad ONLF ay mar kale isku garab taagtay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo dhabarka ka jabi doonta ujeedooyinka ay leeyihiin dadka damacsan in dawladnimada Soomaaliya ay diidaan isla markaasna ay ka hor yimaadaan in Soomaaliya ay yeelato dawlad rasmi ah afayeenku waxa uu sheegay inaysan yeeli doonin wax loogu yeero duleynta iyo dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaano badan oo ka tirsan dawlad-deegaanka halkaas oo ay duulaan ku soo qaadeen ciidamada Itoobiya deegaano ka tirsan gobolka City ayay saacadihii ugu dambeeyay la wareegeen qoomiyadda canfarta oo kaashanaysa militariga qaybta saldhigyada ku leh dawlad-deegaanka canfarta ee dalka Itoobiya waxay doonaysaa in qaybo badan oo ka mid ah dhulka Soomaali galbeed ay ku darto qoomiyadda canfarta oo ay siiso isla markaasna ay dejiso dad hor leh taas oo ay u arkaan ONLF inay tahay abaabul kale oo Itoobiya ay ku soo qaaday dadka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in garab taagan in cid walba oo Soomaalnimo ku dagaalamaysa isla markaasna diidan in la dhibaateeyo dadkooda in isla deegaanadoodana la qaato mucaaradka Somaliland ayaa faray dadka shicibka iyo beelaha ay ka soo jeedaan
inay hubka qaataan oo ay u diyaar garoobaan siday xukunka uga qaadi lahaayeen Muuse Biixi Cabdi. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cidin Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in iminka kadib aysan u dulqaadan doonin waxa uu ugu yeeray xukun isku dhajinta hogaamiyaha iminka talada Soomaaliland haya Muuse Biixi Cabdi. waxa uu hoosta ka xariiqay inay qaadi doonaan tillaabooyin military asagoo sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uusan gumaysan doonin beesha uu ka dhashay ee Garxijis. sidaas darteedna waxa uu faray inay hubka qaataan oo iska dhiciyaan maamulka Muuse Biixi Cabdi oo uu sheegay in uusan ogolayn in doorasho uu qabto. Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa yiri leema dili doono anigoo wata seeri balse waxa la dili doonaa haddii la dilayo anigoo wata qori iskana dhicinaya kuwa doonaya inay dadkayga gumeeyaan. Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa diray fariin u muuqatay in mucaaradku iminka ay joojinayaan qorshayaasha ku saabsan in lala wareego guud ahaanba deegaanada iyo sidoo kale aragtida ay aaminsan yihiin mucaaradku oo aha in meesha laga saaro xukunka ku saabsan in Muuse Biixi Cabdi uu deegaanada Soomaaliland ka sii aramiyo. sidoo kale xubno ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa sheegay inay saxiixayaan mooshin degdeg ah oo lagu la xisaabtamayo Muuse Biixi Cabdi xilkana looga qaadayo inkastoo militarigu ay gacan adag ku hayaan mucaaradka haddana waxa muuqda kacdoono xoogan oo ay mucaaradku abuurayaan. Muuse Biixi Cabdi ayaa ilaa iyo haatan la sheegay inuu diidan yahay in doorashada waqtigeeda uu ku qabto wuxuuna ku andacoonayaa in doorashooyinka iyo ururadu ay soo horeeyaan ururada laguna baahan yahay in laga heshiiyo. haddii jabhadu ay ka dilaacaan Soomaaliland taasi waxay dhibaato xoogan ku tahay amniga iyo xasiloonidii gobolada waqooyi ee Soomaaliya loo aqoon yahay Somaliland oo muddo sanado badan ah uu ka jiray maamul iyo kala dambeyn. sidaas darteed qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa ku baaqaya in xiisada la dajiyo dadkuna ay iskugu yimaadaan miiska wada hadalka. isqabqabsi xoogan ayaa ka taagan adeeg gargaar ah oo laga keenay dalka isku tagga Imaaraadka Carabta taasoo ku xayiran dekada weyn ee magaalada Muqdisho. ninka ugu sareeya dhinaca gargaarka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa la sheegay in arrintan ay isku mari waayeen iyadoo dhinacyo kala duwan oo ku lug leh ay doonayaan in ayagu gacanta ku hayaan gargaarka bini'aadantinimo ee ka yimid dowladda Imaaraadka Carabta taasoo la sheegay in cadadkiisu uu gaarayo ilaa iyo 50 oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dad gaaraya 2 milyan iyo 500 oo kun oo qoys. dadka ka faa'iideysanaya ayaa dad loogu talagalay in ay dhibaatooyinka abaaraha uga soo kabtaan isla markaasna lagu nafaqeeyo maadaama dalka oo dhan ay ka jirto xaalad adag oo dhinaca abaaraha. khilaafkani waxa la rumaysan yahay inuu yahay habka isku milanka dawladda gaar ahaan arrimaha gargaarka taasoo loo arko in wasaarada kala duwan ay doonayaan inay door ka qaataan gargaarka bini'aadantinimo ee dalka la soo gelinayo. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa qaybtii ugu dambeysay ee wasaaradihiisa u kala wareejiyay xilalka waxaana maanta xilalka u kala wareejiyay wasiirro dhowr ah oo ay ku jiraan wasiirada muhiimka sida arrimaha gudaha, qorsheynta, dhalinyarada, warfaafinta iyo wasaarada kale oo dhamaantood loogu talagalay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ee shaqada u guda galaan. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu qaaday tilaabo dad badan ay soo dhaweeyeen. Dani ayaa warqad uu soo saaray waxa uu ku faray wasaaradda waxbarashada Puntland in gabi ahaanba ay joojiso ka ganacsiga manhajka waxbarashada taas oo dadka reer Puntland maalmihii ugu dambeysay cabasho ay ka muujinayeen. wasaaradda ayaa la sheegay in lacag fara badan ay dul dhigtay manhajka taasi ayaana la sheegay in Siciid Cabdullaahi Dani uu go'aansaday in dadka reer Puntland manhajka lacag la'aan looga dhigo maadaama ardadu aysan awoodin inay dhaqaale badan iska bixiyaan. warkaad ka daawanaysid Dunida TV waaga intaas Dunida TV